السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waad islaamaya dhammaantiin kusoo dhowaada muuqaal kale iyo dabka fikis muuqaalkan waa muuqaal ka mid a muuqaaladan ugu talagalay dhankaasi YouTube-ka. Waxaan samayn doonaa trade recap. Trade recap-kani wuxuu ku saabsan yahay trade aan maanta galay 27-kii bishii sideedaad. Trade-kan aan maanta galay isla maanta Londonkiina waan soo dhigay trade horaan galay. Waxaa laga yaabaa muuqaalkan aad daawanaysid ilaa soddonka bishii mataqaanaa sideedaad inaad daawan doontaa laga yaabaa, waayo muuqaalo kalaa maanta soo galay. So trade kaloon maanta qaatay waa kan oo waxa weeye GBP USD baan ka qaatay. Trade-kan bullish-ka buu ahaa marka. Haddaba waxaan u baahannahay trade-kan iyo sababiha ku qaatay inaan isla eegno. Haddaba trade-kan si aan isla eegno waa inaynu marka hore price-ka cut kusoo samayno, aan bal dib usoo jarnaa. Si aynu markaas kula fahanno maxaa dhacay, sideen trade-ka u galnay iyo maxaynu ku salaynay trade-kan. Horta waxaan joogaa saad ujeedaan 4 hour time frame-kan joogaa. Maadaama 4 hour time frame-ka joogo waxaan doonaynaa inaynu isla eegno waay aan u qaatay daba trade-ka. Trade-kan saad ujeedaan price-kan wuxuu ahaa price biirisha buu ahaa hoos soo dhacay, laakiin price-kan ahaa price marka hore aan hoos kasoo diray maalinkii hore oo halkan aan kasoo baahigareeyay trade-kan. Wuxuu igu dhex furmay newska baa sii tuuray. Laakiin price halkan aan kasoo baahigareeyay maalinka hore I think waxay ahayd jimcihii aanan khaldanayn. Khamiistii jimcihii buu trade-kii markaa baxay. Marka newska trade markaa halkan aan ka soo diray anoo ideyadii bullishka ahayd haysta uu price-kani ii yimid markaa uu sameeyey fair value gap-ka weyn. Anoo fair value gap-ka weyn waxaan rabay bal scenario kale oon ku baagarayn karay inaan helo. Soo darkiisan price horta waynu soo buuxiyey. Waxaa jirta qaacidada loo yaqaano waxaa la dhahdaa sorry magaciisii baan hore usoo qaban waayay. Waxaa la dhahdaa Jerome Powell theory baa la dhahdaa. Oo waxa weeyaan theory-gaasi in markuu candle-ka newskii uu sida aggressive-ka u baxay one direction move-ka la yidhaahdo markuu samaysmo waa in at least 50% candle-ka la keena ama si dhammaystiran candle-ka loo soo wada buuxiya. Qaacidadaasaa jirta. Anoon markaa ma rabin inaan isniintana ka qayb qaato ma rabin. Markaa faraha ka qaad. Maanta markaa scenario fiican ka hela marka. Maxaa halkan yaala marka? Waxaa yaala inversion fair value gap-kan dhinaca xiga. Inversion fair value gap-kan anoo haysta baan u eegay markaa haddana euro USD. Haddaad u fiirsato euro USD-na waa tan, JPY USD-na waa tan. Euradu way qaaday soo yara ururi weliba 4 hour-keeda taagan. Okay, euradu maxay qaaday candle-kii way qaaday maalinkii hore even xataa de lowgana iyadu qaadayba intaan hadinaan uga eegin baba candle-kan waxaan. Euro waxay qaaday lowgan la sameeyey jimcihii, laakiin GBP-du may qaadin lowgii jimcihii la sameeyey. Halkanaan markaa scenario-hay ka dhistay markaa. Waa kan halkan maxaa taalla markaa SMT baa taalla. SMT-dan yaa sameeyey waxay u dhexaysaa euro USD iyo JPY USD. Euro way qaaday, JPY-na way ku filgan. Inta badan aan waxaan aad u jeclaa inaan trade ka galto lacagta mataqaanaa ku filgarooda ama week ay ku filgarooda inay qaada lowga. Maadaama SMT-dina dhammaysanay naga xigtan halkana SMT-da igu calaamadan. Maadaama 4 hour-kaygii aan haysto mataqaanaa aan haysto 4 hour SMT fair value gap inversion fair value gap aan haysto clean bay ii wadataa marka. Waxaan u baahnay inaan aado markaa 15 minute. Sidoo kale waxaa ii muhiima time and price theory-ga marka. Anu qaacidada aad baan uga dambeeya la dhahdo time price theory-ga. Time-kayga haddaan la joogo wax trade ma galo. Markaan waxaan galaa inta badan trade-ku inuu ka dambeeyo after 8 ama 3 barka. Price-kaygana ismabuu diyaarinaba ilaa 3 barkii kadib uu trade-kii uu isdiyaariyey mataqaanaa trade-kaygana marka. Haddeer waa imisadii muxuu isdiyaariyey maxaa horta qaacidadeena kooda markaan soo saxaynaa marka. Maadaama lower time frame joogno waxaan u baahannahay inaan soo helno liquidity sweep. Waxaan aan maanta dhan wada akhrinayo iyaguna live-an waxaad ka heli doontaa Telegram channel-kayga iyagoo tusaalayaal fara badan. Linkiga ugu horeeya committee-ga yaalla join de. Waad fahmi doontaa marka waxyaalo badan oo casharkan ku dhex sheegay. Marka waxaan u baahnaa liquidity la qaaday inaan soo helaa liquidity sweep-keenu wayna soo helnay oo lower time frame. Markaan soo helay lower time frame liquidity sweep-keenu waxaan u baahannahay inaan soo helno haddana OB candle-keeni. OB candle-keenina waa kan. Intaasoo dhan anoo haysta OB candle-keenina waa kan. Intaasoo dhan marka anigoo haysta waxaan halkaasaan ka baahigareeyay markaa price-ka halkanaan buy limit-kayga dhigtay. Stop loss-kaygaan dhigtay. Deetana target-kaygana waa maxay? Waa 1 to 2. 1 to 2 clean baan target gareynay. Price-kii baa waxaan arkay in area-dan mataqaanaa aanay wax badan ii dhexaynin. Halkan waxaa ku jira fair value gap. Waayo waxaan arkayaa
inuu price ku sameynayay scenario caynkana inuu san sameeyey uu deetana uu ku xidhmay deetana waxaan rajeenayay inuu sameeyo priceka intuu yimaado halkan uu deetana kor uga kaco marka anigu horaan usoo degay waxaan usoo degay maxay waxaan imid fair value gapka halkan ku jira baan ka baygeliyay markaa fair value gapka halkaa yaalla baan ka baygeliyay so waxaan idhi halkaasaan limitkayga dhigtay stop loss-igana waxaan dhigay halkan so 1 to 2 baan target garaynaya marka oo halkee noqonaysaa haygan buu noqonay saasaan marka dambe ku base gareeyey scenario-hay so maxaa dhacay markaas kanalkii ku xigay bricekii u yimid u tegey almost tbgii baa saa laygu siiyey so laakiin waxaa taalla halkan cashar weyn imuu furin traderka anigu marka waan soo dhigi doonaa screenshot waan soo dhex raacin doonaa haddii aan helo halkan baba aan ka tusaababa sawirkiisa ba sugaa sawirkiisa halkan baan ka tusaya ugu jira saad halkan uga jeedaan markaa saad halkan uga jeedaan traderki waa kan waxaa soo gelay telegramka waxaad arkaysaa inuu ku fail garoobay inuu ii qaado inuu ii furo traderki waka halka areadaasaan rabay inaan ka buy gareeyo uu ku fail garoobay inuu areadii iga furo so priceka laakiin sidii toos buu tbgiisii u aaday sidaan halka kamid arkayn so aniga laakiin iimuu furin mushkiladdu waxay ka taagan tahay aniga tradekaasi la iima furin oo tradeka maalinka wax faa'iida kama sabin laakiin haddana dee trade ina wada ixtiraamay dhammaan scenario-heenu dhan buu ahaa so sababtaas aanan tradeka uga qayb qaadan so waa kan channelkiini halkan kusoo biir mataqaanaa halkan kusoo biir halkan mataqaanaa yaalaan dhammaan casharada dhammaystiran sawiradii mataqaanaa tradadii aan qaatay iyo sababahan ku qaatay halkan ay wada yaalaan insha allah kusoo biir wax badan baad ka faa'iidi doontaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu